هلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأمام الصومالي maanta waxaan rabaa waxa run ah inaan idinka sheekeeyo hooyooyinkiina yaryar and I wish markaan yaraa wax sidaa idhaha inaan arki lahaa dhegaysta gabdhaana dumar baana hooyooyin Soomaaliyeed baana dal burburay ayaan ka nimid dadkayagina waa wada qaxoonti kii dalkii joogana waa shaqo la'aan kii ka baxsanuna meel kale qaxoonta ku yahay kiiba ilaahay meel uu ka shaqaysan karo irsaaqada taalkeenta ma ogiyo haddaba ay dhagaysta hal arrin oo noloshayda i caawisay ayaan idiin sheegayaa Soomaalida horay u maahmaahda Soomaalidu waxay tiri wax la dhalay iyo dhulka marti loo yahay Soomaalidu waxay tiri caasigaagu albaabkaaga ma mooga Soomaalidu waxay tiraahdaa haddaan hirir waali joogo asaad hawd hala ku raacdo anubaa hooyadaa Soomaalidu waxay kaloo tiraahdaa lama huraan waa cawska jiila arrimaan haddaba idinka sheekaynaya si fiicanna ii dhegaysta dababa waa waxay dhashay doono hooyada dababa waa waxay dhashay waxaad dhashay raadso ilmaha adigu aad dhashay oo calooshaada laga soo saaray number 1 ha kuu noqda ilmahaaga number 1 ha kuu noqda arrinta labaad oo raba inaan kaala hadlo reerkaaga iyo gurigaagu bannaanka ayuu ka qurxanaani keliya gurigaaga gudihiisu ha qurxanaado guriga waxa qurxanaanaya alaabta maahan dharka la xiran yahayna ma ahan waa qalbiga caruurtaada iyo qalbiga reerkaaga iyo qalbiga naftaada marka qalbiga caruurtaada qurxoon yahay qalbigaaguna qurxoon yahay ayaa reer qurux badan soo baxaya guri weyn oo kor ka qurux badan iyo alaabo lagu sharaxay ma qurxiyaan wax waa materialkii waxaan lagu dhaqmayay laakiin waxa aydan suuraynin future-kooda iyo kaagu waa waxa aad dhashay kuwa hadday ku hagaagaan oo laan toosan oo qurxoon kuu noqdaan oo ilaahay kula garab galo noloshaadu waa hagaagta haddii tii alla kuu timaadana adoon warwarayn baa naftu kaa baxaysa haddii kuwaasu kaa qalqalloocdaan oo inaad toosiso aad misgarayso weliga adigu waxaad dhashay waa qalqalloocan yihiin haddaad guriga walaalka caruurta walaalka iyo guriga waxbarto oo qurxiso oo tii walaasha qurxisood wax barbarto oo tii kaasinkaaga inaabtigaaga qurxisood wax barbarto laakiin kuwaaga qalqalloocan yihiin kuwa aabiyo hooye ayaa dhaleen kale adigu laakiin waxaad dhashay baad dhashay waxaad dhasheen dadka ka aqoonsan waxa aad dhasheen dadka ka aqoonsan ha xumaado ha samaado waqtiga idinku badan haddaad hooyo tahay ubadkaaga geli maskaxdaada iyo xigmadaada iyo xoogaaga iyo ilaahay baryadiisa isugu dar marka u horeysaba haddaad isla dhisataan oo aad marka u horeysaba unit inaad tihiin oo aad tiim tihiin aad ilmahaaga tusto ayaguna tiimkaasi kula noqonaya bara caruurtiina family inaad tihiin qof idin soo dhexgeli karana inuusan jirin qofna una idin soo dhexgelin walaa adiga hooyada walaa odagaaga hooyadiis
walaa cid kale walaa hebel qofna uuna idin soo gelina adiga carruurtaadu hal unit inaad tihiin oo isku xiran markay yar yihiinba ku bilow inaad tihiin carruurtaada hadalkan idin lahay si fiican ii dhegaysta reerka walaalka iyo kan walaasha iyo kan inaadeerka iyo kan inaabtiga fam qaraabaad waxaa tihiin walaal iyo ehel laakiin adinka iyo carruurtaada iyo reerkaagu hal unit baa tihiin daad waa keligin guri u degantihiin oo albaabka idinku xiran yahay haddaadan la deganayna saad ilmahaaga meel uba degi lahayd haddaadan curyaan iyo indhool iyo dhagool ahayn ood unit u noqon lahaydeen ku fikir haddii aad reertii laba qofoo isqabtaya carruurna hal unit oo sidaati farendis uu tegi walaashaa carruurteeda ayadaa dhashay walaalka carruurshiisa asagaa dhalay iyo haddaad u tahay waa sidaa laakiin realitigu waxay tahay ilmahaagu hadduu maantay toole aad miskarayso inaad toosiso barri marku qalloocdo adoo kugu soo noqonaya daadu waay 30 jir iyo 35 jir hata guryaha Soomaaliyeed ku wada nool yihiin cunugaaga hadduu xumaado hadduu daraaga cabo hadduu alcoholista noqdo hadduu dhib ku dhaco haddii gabadhaadu noloshu ka wararto wax walba aday kugu soo noqonaysaa haddaba ilmihiina dadka ka barta ilmihiina dadka ka aqoonsada ilmihiina deep down isku xirnaada tv weyn oo meel la dhigo la daawado iyo guri la qurxiyo waxaa maxaybka ah intaad wax walba telefoonada iyo wax walba la iska xiro inta halkaa la wada fariisto adiga ilmahaagu inaad iswaraysataan marna unit isku waraysataan marna mid hadba mid aad iskula u sheekaysataan oo markaad keligiis la noqotaba aad tiraahdo ilmahoo dhan adaan kuugu jecla laakiin kuwa kale ha u sheeg adaan kuugu jecla taasaad ku fiicanta you are very special hooyo amazing baa taa hooyo markuu farxana aad ku tiraahda haye waa la weynaanahayaa high school baan kuu dirayaan lagaa teg elementariga wax fiican aad keentaan kuu dirayaan lagaa teg haye yaan lagaa fiicnaani nin rag oo meel ka soo baxa noqo gabar meel ka soo baxda noqo qof qaaliyato aada qurux badan qof amazing aad saasaad ku fiicanta taasaad ku fiicanta taasaad ku fiicanta taasaad ku fiicanta you are very special to me ma garat ayagu ha ku marmaan hooyaana igu jecesha ilmiyaana ilmaha igu jecesha ilmuhu marka guriga ka soo galo haddaadan shaqo ugu maqnayn adoo halkaa fadhido saamarkoo fiirfiiriyo wuxuu raadinaya awa hooy aaba ma raadinayo qof kale ma hooyaad hoob yaa hooya waay kana bas waa najax wax uu ka warwaraya ilmaba jirto markuu yidhahdo hooya ma joogtaa guriga la yidhahdo hooya waatan ama iskuul uu ka yimaado ama quraan uu ka yimaado ama xataa shaqo uu ka yimaado qof weyn oo fula degan yahay hooyo waatana bas hadba mid ha ku yimaado adigu halkaa diyaarino hadba mid ha ku yimaado maanta iskuulka kanaa laga yiri kaasaa laga yiri hooyo quraanka maanta kanaa laga yiri hooyo xataa haddaad shaqo aado markaad ka timaado halkaa inta fariisatid ilmuhu midba war maanta iga waran iskuulka war maanta see quraanka ah war maanta see maanta maalintaadu say ahayd war shaqada say ahayd family kala war qaato is waraysta noqdo ilmahaagu markuu agtaada soo istaago taleefanka habareer baa la hadlaya hadhiin walaal waa kugu soo celinahayaan tanta walaasha iyo abaayo qofka la sheekaysanaysa muhiim waxaa ka ilmaha ku kortaagan kaasaad dhisurayro hawshiisa ku taala taleefanka haddaad ka korto wuxuu ku sheegi lahaa waa la noqdo ilaan ma qiimaynaysid waxaad dhasheen dadka ka aqoonsada wallaahi oo bilaahi oo tallaahi qof kastoo kale waa la iska kala tegay nin walba meelshiisu aada waxaad dhashay baadan isurayn
waxaagu hadday fiicnaadaanna adaa dhalayo hooyadooda, hadday xumaadoonna adaa dhalayo hooyadooda. hawshaasu haddaad maanta ka mar wareegta oodan biisi ka noqotana berri aday kuu taalla kugu soo noqonaysa. ilmaha dhasho hadduu ilmahaaga ilaahay disable ka dhigo uu ilma curyaana dhasho, mid indhoola haddaad dhasho, mid autism haddaad dhasho, mid alkulista haddaad dhasho, intuba aday kuu taalla, adaa ilaahay ku sii, waa nasiibkaaga. marka waxaadan waxba ka qaban karin dee eed kuma lihid, laakiin wixii aad wax ka qaban karto saad u hagaajisan karto u hagaajiso. naa waxaad dhasheen dadka ka aqoonsada, naa waxaad dhasheen gooni haydin, naa waxa ilmihinu haydiin gooni noqdeen oo reerkeenu gooni haydiin noqdo oo private yeeshto ilmihinu gooni haydiin noqdo. oo waxaan idiin sheegayaa waxaad dhasheen dadka ka aqoonsada, waxaad dhasheen dadka ka aqoonsada. naa ilmihinu isbara ilmihinu inay gooni idin yihiin oo number 1 hawsha idin taal ilaahay idin saaray inay ilmihiina tahay oo ay reerkiina tahay. naa markaad ilmihiinu hagaagsan yihiin yaad dadka kala caawiya. kuwiina markaad wax barteen cid kale wax bara. kuwiina markaad aad isku toostoosisaan dadka kala caawiya. naa doqonay wiilkaagii high schoolka ka baxay oo gaari shaqada ku aado ama jaamacadda ku aadaan haysan, maxaa guri Afrika aad ka dhisayso kuu diray? maxaa cid kale guri u diristooda kuu diray? war ilmuhu markuu yar yahay buu kaalmo kaa rabaa. war dhari markaad wax walba ku darto hilib, basal, maxay tahay yaanyo, xawaaji, saliid, aad saa isugu kariso, taymkaaga geliso, dab ku shito, ood haddana bariiska ku qallayso, biyo ku darto, ood isku dabashaad meegshow garayso inuuna guban baa la cunaa. ilmuhu waa sidaas. wargeed beer inta la beero layskama tegi karo. war beer ilaa maalinta la gurahayo waa inaad kor taagnaatood gurato. ilmuhu ilaa laga gurto ay mira ka dhalaan carruurta waa in la kor taagnaado. war dadkan aan la deganahay carruurtooda kama haraan. gaalaa ilmahooda cayrisa, gaalmaa ka yeesha waa been. cunuga la cayriya waa cunugaan meelna u soconoo la kari waayo. dariskaygo dhan carruurtoodii wada iyagoo wada 25 jir ay jaamacada guryahooda ka dhiganayaan, 28 jiraa la degan ilaa ay ka guursadaan. dhegaysta soomaaliyay waxbaa isaga keen qaaqasan. naa tii sabadar yeelaato kala ku daray hooy waxaad dhashay dadka ka aqoonsa. naa waxaaga hagaajisa, naa kuwaaga toostoosisa, naa kuwaaga wax barbar. markaa kadib ehelka u kaalme oo ehelka wax dar. waxaadan hurayn lama huraan waa cawska jilaal, waa waxaanaad dhashay. meelna kaama aadayaan, hawshoodu aday kuu taalla. waas gabar Soomaali heblaa tartay, heblaa sisay, heblo waxaanay qabatay. heblo waxaa muhiimka ah heblo ilmo wanaagsan bay wax baratay soo saarata. ilmo diin loo akhlaaqli adduunka ku soo daysi oo maday dhibaatana quraan u soo aqrinaya, hadday nooshaayna wax taraya. ilmo waddanka yimaadeen wax ka qabsadeen oo hadhowti haddaad carruurta la hagaajiyo oo carruurtu shaqeeyaan 9 qof 8 cunug baa wax taraysa, dadka 5 cunug 6 cunug baa dadka wax taraysa. adigu haddaad carruurta intaa dayacda adigoon heblaa qabatay, heblaa dhistay, heblaa guri dhistay, heblaa barkad qoday, heblaa walaalkaad business u fartay, heblaa hebel biisha, markaad dhimatana manfacaaga intaasi ku dhammaa. laakiin haddaad 9 iyo 8 iyo 5 cunug iyo 4 cunug wax barto oo dad future loo wax baratay oo diin oo mustaqbal la ka dhigto, kaligaa waxaad qabanaysaa 9 jeer wax qabanayaan ka badan oo weliba kaa mushaar badan yihiin oo kaa lacag badan yihiin oo kaa xoog badan yihiin. wartii sabadar yeelaa ku dalay carruurtiina guryihiina hoos u fiiriy. war carruurtiina meeshay ka dhimatay ka toosi. war carruurtiina dhegaysta. war dadka weliga gurigiinana war kama haysan. gabdhaha Soomaaliyeed reerkayagii hebel baa la yiri, hebel baa kale. markaas hada waxaa socday yaad daldasheen hadhowbaad wiilkaygii gabadha baa la dilay, meel heblaa lagu dilay, war kama hayo. gabadhii duurka ay gashay ilmihii kaan maayo. dee ilmuhu hadduu guriga hooyo jiro waa layska kala carari. oo halkaa iyo Soomaaliya salkeeda reero kale ka dhisaysi waa soo wada samaynay. waryaara aan isdaba qaban. carruurta Londonna ku dhimanaysa, Canadana ku dhimanaysa, Maraykanna ku dhimanaysa.
riisanka waxaas u dhacayaan carruurta guryaha ka saaraysa waa inaan ogaano waa inaan hoos isugu noqono bal intaan fadhiisanaan anaano hooyo seed rabtaa noloshaada maxaad rabtaa inaad gula tali maxaad rabtaa aan kugu caawiyo la imo waxaan adigu kugu caawiyo madaxaaga aad ka rabto inaad samayso diyaar baan ku ahay inaan ku caawiyo waxa uu ku weydiistaan ku caawi hadduu ku dhaho waxbaan baranayaa caawi hadduuna waxbarasho rabin inuu shaqaystaan rabana shaqadii salfonkii iyo gaarigii iyo shaqadii la raadiyo isku toosi oo caawi qadada iyo quraacda iyo casho ilaa uu mushaare inta ka qaato mid kale ka qaato mid kale ka qaato oo uu shaqada kala qabsado garab istaagno oo guri markuu galab ka yimaadana wuxuu cuno iyo isqushu ku qubaysan lahaa diyaar ha u noqoto war dadka qurxoona dalkaysin dad baa soo hagaajistay madaqoomaati waryaaya dhexda marada ku xirta waxaad dhasheen dadka ka aqoonsada naa hooy ha ku daalin dadaan ilaahay mas-uuliyad kaa saarin gabar baa tahay ilaahay horta waxaad dhasho mas-uuliyad kaa saaray wixii soo raaca waa inaad waalidkaa aad wax tarto waxaad awooddo aad tarto waxaanaad dhashayna hoos u fiiri anigu intaasaan kugula dardaarmaya koorlasaf inuu manina kula koriyo ama keligaa kori bal waxaad dhashay dadka ka aqoonso in yaroo inta yaree ilaahay ku siiya dadkan aad tacabtay dadka ka aqoonso oo cidna ha la simin cidna ha ku dhex darin waxaad dhashay adaa dhalay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu